asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha horyaalada qaaradda yurub. fadlan daawade haddaad tahay daawade nagu cusub waxaanu kaa codsanaynaa in aad barnaamijkan aad sabskrayb saarto lana wadaagto asxaabtaada kale. barnaamijkani waxa uu noqon doonaa barnaamij toddobaadla ah oo aad maalin kasta oo jimco ah aad ka daawan kartaan barta aanu ku leenahay youtube ee ciyaaraha news live football. waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa horyaalada qaaradda yurub oo maraya meelo xasaasi ah. dabcan daawade waxaanu rabnaa inaanu inla wadaagno barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadyadan waanu kusoo qaadanayno afarta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda yurub. waxaanu kusoo bilaabi doonaa horyaalada premier leaga, kan bundesliga ama jarmalka liga oo ah meelo xasaasi iyaguna maraya. horyaalada yurub waa horyaalo aada u xiiso badan, dabcan waana horyaalo ay dadku aada ugu xidhan yihiin. fadlan waxaan rabnaa inaad wixii fakerkaaga aada noogu reebto commentiga ama meelaha la ysku reebo fariimaha ee hoos ku xusan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nala wadaag barnaamijka iyo taladaada iyo tusaalahaada. waxaanuna ku bilaabi doonaa horyaalka premier leaga oo maraya meelo xasaasiya. ciyaaraha ugu horeeya waxa ay dhex mari doonaan liverpool iyo newcastle saacadda 2:15 geeska africa. waxaa ku xigi doonta brighton iyo burnley. waxaa ku xigi doonta manchester united, leicester, sheffield united iyo southampton, tottenham iyo crystal palace, wolves iyo chelsea oo ciyaar aada u adag ah. ciyaarta ugu dambeysa waxay dhici doontaa 7:15 geeska africa waa norwich iyo man city. fadlan nala wadaaga nalana soco. ciyaarta ugu horeysa waxa ay dhex mari doontaa kooxda liverpool iyo newcastle, waana isbuucii shanaad horyaalka premier leaga. liverpool waxa ay rajeyneysaa inay badiso kulankan, waana kulankii shanaad oo xiriir ah. kooxda liverpool oo ah koox ku caanbaxday line upka 4-3-3 ama 4-3-3 ayaa rajeyneysa in ay newcastle dhinac iskaga rido, iyagoo og in newcastle wacdariyaha ay ku dhigtay tottenham oo weliba ay gurigooda kula soo ciyaareysay. newcastle waa koox aada u adag, waa koox hadda is haysata, waa koox aan la dhayalsan karin, balse liverpool marka loo fiiriyo dhinaceeduna kama yareysato. tababaraha kooxda newcastle united ee steve bruce waxa uu aada iyo aada u rajeynayaa in uu xakameeyo weerar ay hogaaminayaan Firmino, Mane iyo Salah. waana weerar halis ah marka loo fiiriyo dhinaca liverpool. weeraryahaanadan liverpool waxay ahaayeen weeraryahano taxana ah oo wacdara kasoo dhigay kulamadii horyaalada champion leaga, premier leaga oo hal dhibic looga qaaday inuu ogeyn. waxaase mudnaan mudan in Mane iyo Salah ay xurguf hoose ay ka dhaxayso, walow aan weli wararka qaar sheegayaan inaan weli la xalin arrintaas, ay weli taagan tahay. Firmino ayaa ahaa ciyaaryahanka isku dayay inuu dhexdhexaadiyo labada nin ee saaxiibka ah, balse Mane ayaa cadho awgeed ku gacan saydhay. waxaa ciyaar xiise leh ay dhex mari doontaa labada kooxood ee Leicester iyo Manchester United. ciyaartaas oo ka dhici doonta Stadium Old Trafford oo ay kooxda Manchester kusoo dhaweyn doonto kooxda Leicester oo laga soo iibiyey ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara ee Maguire. Manchester United waxa ay rajeyneysaa inay guul ka hesho ciyaartan soo socota, walow ay guuldarooyin iyo ciyaaro draw ah ay ka heshay qaybihii hore ee ciyaaraha premier leaga. kooxda Manchester United ayaa waxaa la rajeynayaa inay la timaado ciyaar xiiso leh oo qancisa taageerayaasha 75,000 ee soo buuxin doona gegida caalamiga ee Old Trafford. coachka macalinka u ah kooxda Manchester United ee Ole Solskjaer ayaa la rajeynayaa inuu la yimaado ciyaartoydii yarariiska ahayd oo uu ku caanbaxay seasonkan, walow aysan jeclaysan taageero badan oo dunida dacaladeeda ku kala nool oo taageera kooxda Manchester United. Leicester waa koox aada u adag oo haddana ku jirta kaalmaha ugu horeeya Premier League, walow uusan Premier League fari ka qodnayn, balse waxay tahay koox aan la dhayalsan karin. waxaa laga yaabaa in ay kooxda Manchester United ay ku gilgishoon kuna garaacdo kooxda stadiumkooda Old Trafford oo waa ahaan jiray stadium ay kooxaha Premier League cabsi badan ay ka qabaan. Leicester waa koox aada u adag oo aan cidi
dhayalsan karin marka loo fiiriyo tribkan meelaha ay kaga jiraan positionada ay kaga jiraan Premier League oo ay ku jiraan kaalinta saddexaad oo ay leeyihiin 8 dhibcood iyo 3 gool. Leicester waxa ay tahay koox adag, waa taasi su'aal kama taagna. waxaynu sugnaaba waa ciyaarta Leicester iyo Manchester United, waa ciyaar aad u adag oo caalamka dhan laga wada daawanayo, walow ay tahay koox Manchester United waa layna haya, waxaad carartaanba Wolves iyo Crystal Palace iyo Leicester baa ka daran. Leicester warkii hore war soo dhaaf. ciyaarta xiisaha leh ee dhex mari doonta kooxda Norwich City iyo Manchester City waxa iyaduna ay tahay ciyaar xusid mudan in la falanqeyn iyo laga hadlo. ciyaartaas waa ciyaar aad u xiiso badan, waxa ay tahay ciyaar laakiin la iska saadaadin doono dhinaca ay guushu raaci doonto. Man City inkaar bay qabtaa, cidii ma hor istaagi karto. weeraryahanadooda kale ah Aguero, Sterling iyo Jesus ayaa ah weerarka iyaguna saddex xagalaha ah ee aan loo babacdhigi karin. Man City iyadu guushan waa guul saadaasheedu ay iska sii caddahay, maadaama ay tahay in koox u cararayso horyaalka inay mar labaad ku tuntumato, balse Norway oo aan laga qabin wax saas u badan inay istaajin doonto Man City. Man City waa koox dhinac kasta ka dhisan, dhexda ka dhisan, weerarka ka dhisan, difaaca ka dhisan. uma malaynayo inay tahay koox si yani sahla loo istaajin karo. ciyaartaas waxaanu inaga codsanaynaa inaad iyadana soo falanqaysiin, kasoo hadashiin, soo yani gurfaysiin. Man City waad ogtihiin in wacdarihii ay kasoo dhigtay last season. dhexda waxaa iska hogaaminaya ninkii aad ogeedeen Depoye iyo Braziliankii. daafaca waad garanaysiin, weerarka waad garanaysiin. Sterling waa nin u ooman inuu had iyo jeer goolal uu dhashto, wala uu hogaaminayo hadda gool dhalinta English Premier League. ciyaaruhu ma sahlana. Pep Guardiola sometimes waxa uu sameeyaa khibrado la yaab leh, shaxda ciyaarta socota wax ka bedela, marka waa nin aad iyo aad u maskax badan oo coach khibrad leh. dhinaca kale waxa ay ciyaar xiiso leh bari dhex mari doontaa kooxaha Wolves iyo Chelsea. Wolves oo ah kooxda waayahan gilgishay horyaalka Premier League. Frank Lampard oo ah tababaraha kooxda Chelsea oo dhawaan ay kala soo wareegtay kooxaha heerka labaad ayaa hadda maraya imtixaanaadkiisii ugu adkaa abid. tababare Frank Lampard waxa uu isku dayayaa inuu isbedelo badan ku sameeyo shaxdiisii toddobaadyadii hore, walow aysan ahayn koox uu isdhihi karo waad celin kartaa kooxda Wolves. Frank Lampard waxaa la rajeynayaa inuu ka maqan yahay daafacyada bidix iyo midig, iyo Alonso iyo Rudiger ayaa la rajeynaya inay ka maqan yihiin, walow uusan caddayn inuu weerarkiisa keeni doono William oo ah nin rugcada ku ah kooxda Chelsea. Frank Lampard waa ciyaaryahankii hore ee Chelsea, haatan ah tababarahooda. waxa uu isku dayi doonaa inuu kooxdiisa la gaaro guulo taariikhi ah, walow ay hayaan ciyaartoy la-aan. dhinaca suuqana ganaax weyn uu ka saarnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay, balse kooxda Wolves oo ah kooxdii Manchester United kula ciyaartay garoonka Old Trafford haddana kula gashay 1-1 ayaaba la dhihi karaa waxay tahay koox la isdhihi karo Chelsea way kusoo durdurin kartaa. balse waxaan u dhaafaynaa predictionka ama falanqaynta ciyaarta taageerayaasha ku nool dacalada dunida ee taageerada kooxda Chelsea. waxaan ka codsanaa inay nala soo xiriiraan commentiga, ay noogu soo qoraan waxa ay ka qabaan iyo sida ciyaartu u dhici doonto kooxda Chelsea iyo wacdaraha ay dhigin doonto beritoole ayaanu sugaynaa. dhinaca kale Real Madrid waxa ay doonaysaa inay gurigooda Bernabeu kusoo dhaweyso kooxda kaalinta afraad ku jirta Levante, iyagoo doonaya inay guulahoodii lagu yaqaana ay kusoo laabtaan, walow ay labadii game ee xigay ay la ciyaareen Valladolid iyo Villarreal ay galeen barbadhaca. Real Madrid waxa ay isku dayaysaa inay iska soo dhex muujiso horyaalka La Liga oo ay qarash gareysay lacag gaaraysa 500 milyan, welina aan lagu arag habdhaqankii iyo maamuuskii lagu yaqaanay kooxda Los Blancos. Real Madrid waxaa laga sugayaa inay ciyaar wanaag beri soo bandhigto, kaalintana ay kala baxdo kooxda Levante, walow aan la rajeynayn rajadaas inay dhici doonto. Levante laftigeedu ma yaraysato, waa koox aad u adag oo isku dayaysa inay difaacasho iyo
weerar dhinacyada baalaha lagu yaqaan ay lasoo bandhigto. dhinaca kale Juventusna waxa ay berri la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina oo ay marti ugu tahay gurigeeda. Juventus waxa ay kooxda ay martida u tahay ay ku jirtaa kaalinta 16aad walow aysan isdhahayn Juventus waa lagu celin karaa. waa boqortooyada kooxda Talyaaniga. Juventus waxay laasi 7 years ay iska soo maamuleysay horyaalka La Liga oo wax ka qabtaba ay lahayd. Juve waxa ay weerarkeeda la imaan doontaa Ronaldo oo ah xidiga kala soo wareegtay Juventus waqtiyadii hore. Juventus waxaa la rajeynayaa inay ciyaar cajiiba kula soo bandhigi doonto gegida ciyaaraha ay Fiorentina, waxaana ay in badan kooxda Juventus rajeynaysaa inay tubta guusha dib ula soo laabato oo ay horyaaladan dib ugula soo laabato weerar aan innaba caadi ahayn. balse kooxda Fiorentina ayaa isku dayeysa inay kaalmaha hoose 16 kor uga soo dalacdo oo ay timaado walowba kaalinta 10aad ama kaalinta 8aad ay soo gasho. Fiorentina qudheedu maaha koox yaraysata, laakiin sometimes waxaa dhici karta in ciyaartu waa cad iyo madow dhinac ay rabto isku rogi kartaa. kubadda lama saadaalin karo, waa balaayo kubaddu. walow Ronaldo teestooyinkii iyo madaxyadii uu ku caanbaxay uu soo bandhigi doono, Dybala qudhiisu wuxuu ka qayb qaadan doonaa beritoole weerarka, walow Mansuki iyo Bonucci iyo rag badanna ay iyaguna sidoo kale maamulan doonaan weerarka dhexe. dhinaca kale kooxda Barcelona iyo Valencia ayaa ciyaar waxay ku dhex mari doontaa gegida Camp Nou ee kooxda Barcelona. walow ay Barcelona doonayso inay ka argudato kooxda Valencia oo ahayd kooxdii ku gulgishay Stadium Benito Villamarin, ciyaartaas oo ahayd ciyaartii finalkii koobka boqortooyada dalka Spain ee Copa del Rey. kooxda la dhaho Barcelona waxa ay rajeynaysaa inay ka argudato oo ay si fiican uga ciil baxdo kooxdii ka reebtay kana qaaday koobkii boqortooyada ee Copa del Rey. Lionel Messi ayaa dhaawac ku seegaya kulankiisii afraad walow uu usoo laabtay laacibkoodii kale ee Suarez. waxaa sidoo kale ka maqan daafaca Samuel Umtiti kaasoo la xaqiijiyay inuu dhaawac garoomada uga maqnaan doono muddo 6 isbuuca. dhanka kale Valencia ayaa isbuucan cayrisay tababaraheedii koobka Del Rey u qaaday macalinkoodii Marcelino, kaasoo ahaa koobkoodii ugu horeeyay muddo 12 sannadood ah. walow ay rajeynayaan in kooxda Valencia ay kasoo kabsato ciyaar xumadii soo wajahday, waxayna ku bedeleen coachka cusub ee Alberto Clandes. dhinaca kale Barcelona ayaa isku dayeysa inay la timaado ciyaartii lagu yaqaanay walow uu soo laabtay Suarez oo ah gool dhaliye khatar ah. Barcelona iyadoo Messi uu seegayo kulankan waxaa haddana Barcelona ay kusoo laabtay Luis Suarez, kaasoo ka dhigan in Bulgariana ay dhinaca weerarka iska soo xoojisay. tababaro Clandes ayaa la filayaa inuu isagana isbedelo badan ku sameeyo shaxdaas oo ah shaxdii uu ku caanbaxay 4-4-3, inkastoo uu diiday inuu ka hadlo shaxda ciyaareedkiisa ee xilli ciyaareedkan. shaki kuma jiro in kooxda Barcelona ay isku dayi doonto inay kasoo kabsato barbardhacooyinkii ay dhowaan kala kulantay, balse Valencia laftigeedu ma aha koox hadda dhayalsanayso. waxay la timi macallin cusub, waxaana la rajeynayaa inay boorka iska jafto oo ay ka argudato kooxda Barcelona iyo mar labaad. balse ciyaarta waxaa lagu ciyaarayaa Nou Camp oo ah garoon aan cidi ku hadlin marka la dhex joogo. kooxdii tagtaana waxay intay daawanayso garoomada dhinacyadiisa ay kala timaadaa dersin goolal ah. Valencia ayaa balse rajeynaysa inay kasoo reebto waxyaabihii ay ku caanbaxday. waxaan u rajeynaynaa dhammaan saaxiibadeena iyo dadkan daawanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.